wararkii ugu dambeeyay arrimihii uu maanta ku dhaqaaqay Donald Trump waxyaabaa kasoo cusbaanadeen waxaa ka mid ah nin ka tirsan AfriForum dadka la yiraahdo oo dad isku tegay oo cadaan ah oo dalkan Koonfur Afrika dadkii gumeystay ka mid ah ayaa sheegay in Donald Trump uu weydiisanayo in madaxda ANC uu ku soo rogo xayiraad caalami ah taasoo micnaha ka dhigan in uu aad uga soo horjeedo oo aad u taageersan ninka waxa la yiraahdo Safran ama madax banaanida Koonfur Afrika ku xadgudbay taasoo hadalhayn badan iyo kala qaybsanaan ka dhalisay dalka Koonfur Afrika oo dadka qaar ay leeyihiin dadkan waaba cadowba inay noolaadaan dalka noo jooga mahin ninkan ayaa hadalkiisa wax la yaab leh ku noqotay xitaa naagda wariyaha weydiinaysa waxay tiri ma yaysan ahayn in madaxdii dalkeena aad micnaha ku amraysa in xayiraad caalami la saaro oo adduunka dib noo dhigayso ma ka fiirsata hadalkaas markaasuu waa uu ku adkaysana ayuu leeyahay waaba saxba dadka dalka khiyaanay oo dalka ka soconaya ayaguu leeyahay wararkiisa balan dhegeysana bal. You are basically asking Donald Trump to target ANC leaders. What does that mean for our country? Because this is the leaders of our country you're talking about. Yes, it means when you push through destructive policies that are going to harm South Africa and regular South Africans, you should face consequences for it. We want the international role players to target with sanctions South African politicians that push through evil and destructive policies, not to punish the citizens of this country. And that has always been AfriForum's stance. As I said, we have the receipts to prove it. You can go through all of our stances on this issue over the years. It's always been punish the politicians that are seeking to push through policy for their own personal agenda and their party's own agenda rather than for the good of the country, and that will bring about the change that's needed. Kan ay dadka South Africaanka qaarkood isla kalabta la wareystay waxay soo jeediyeen in la xiro aysan ahaynba in ninkani uu banaanka joogo isla markaana ay tahay in la xiro xabsi la dhigaba maadaama uu yahay dambiile qaran. sidoo kale xisaabaha mucaaradka qaar ka mid ayaa ka hadlay ayagana sheegay inuu dalkeena una fursad lahayn ay leeyihiin oo ninkan uu yahay nin edeb daran oo aad u akhlaaq xun dalka hadduu asaga lahayn asaga Donald Trump uu aaminsan yahay aad laakiin dalkan Donald Trump kama taliyo leh ayadoo ay kacsaneed xaasaradihii ka dhashay ciidamadii lagu laayay dalka Rwanda macnaha dalka Congo oo lagu eedeynay Rwanda ayaa arrintan soo baxday saacadii la soo dhaafay 24 saac arrintii dhimad ay hal mar isbedeshay Rwanda lagu sii jeeday hadda waxaad moodaa dowladda Koonfur Afrika in Mareykanka toos meeg ugu qaadataa maadaama Donald Trump uu ka xishoobay arrintii Rwanda waxaad moodaa in hold la geliyay inkastoo maanta ay jiraan siyaasiyiin mucaarada oo ka hadlay arrintii Rwanda oo ayadana toos u bartilmaameedsaday Rwanda oo sheegay in ciidamadooda uu laayay ninka la yiraahdo Paul Kagame طبعا barnaamijyadeena tama ayaan arrintaas ku falanqeyn doonaa haddana ma falanqeysa laakiin arrintani ayaa noqotay arrin ama kaa ku noqoto South Africaankii kala qaybisay xitaa dad waxaa la arkaa social media caawa cadaan oo Donald Trump Mareykanka imow kusoo duulay qabsi xitaa ay dhahay ayaa la arkayaa marka taas ayaa waxay cadeysay in South Africa uu yahay dal kala qaybsan oo qowmiyadaha ku nool aysan marka horeba South Africanimada isku aqoonay inay South Africanimada hal cid oo kaliya leedahay madow la yiraahdo bas ayaa loo ogaa awalba marka arrintan ay hadda banaanka ay soo dhigday marka Afrika saac soo socdo madaxweynaha Koonfur Afrika inuu hadla la rajeynayaa qaar ka mid wasiirada inay hadlaan la rajeynayaa in maxaan ku raahdaa niman siyaasiyiin oo ragacda inay hadlaan la rajeynayaa mucaarad xitaa Jacob Zuma macquul inuu ka hadlo waa Jacob Zuma nafsadaantiisa South Africa dadka ku dhintay uu kamid yahay boqorada Zuluga iyo nabadoonadooda madowga iyo waxa inay hadlaan la rajeey doonaa sida dabcan warbaahintu ay sheegayso marka la arki doonaa waxay ka soo baxay balse Donald Trump waxaad moodaa in mar walba South Africa uu soo jecleynba